qalanjo waxaad hortaabeen la sheekaysan jiray maamaa Soomaaliyeed waxay oran jirtay dameer saarna dhuusiis maxay iga taraysaa qalanjo horteed wada sheekaysan kartaa yaan ya gabadh gadaashina wada sheekaysan kartaa laakiin anigan gadaal la sii deeyeen hore la sii deeyeen hore way soo dhamaato wada soo wada sheekaysateen oo daanu ma ogidii hatta in idinkii iyada wax dhex yeelanayada la weydiinayaa laakiin hadda qalanjo qofka ay la sheekaysato qofka miidiyaha la qofka ay isku aqbalan yihiin qofka ay wax isku ogyihiin qofka dooda imka ay wada sheekaysanayeen miidiyaha wada joogaan iyo qofka dadweynaha oo dhan aniga marka qalanjaan hadalka siinaa adigu raali baad yarahan ayada ka jawaabaysa hadii السلام عليكم سمت روال وصفي عنتها معها سمت هورتا أنيga adiga xiriirka na soo dhaxmaray waa kii sanadkii hore soo afjarmay maysan ahayn okay hadda jacayl cusub baa samaystay xiriir cusub baa samaystay waa aragtaa wajigayga soo dhalaalaya farxad awgeed inaad maxaa ku soo celiyay wats yani maxaa khaldan kaalay nolosha maaragtay mid barafta aad buu qurux badan tahay runbaa fiican okay waxaan ku waa nolosha hadda ku jirtay nolol yahay nolol dhaqan bacdi وغير شيء nolosha waxa ku qurux badan barafta inoo haste maaragtay oo saan loo xaliyo hadda nolosha ku jirto public wiil baa jecelahay gabdho waxa saarin ka yeelay ma bacdi ya ninkan wuxuu iga guulaysan karaa ma oo uu sheegan karaa doonku meer ugu xirantay meerna ugu xirnayna ma bacdi oo marka ma ninkayga hadda rabtaa inaad u jirtay dadwaayahay odagaaga dhabta ah ayaa ku diinaya inta ka horeysa laga yaabo inuu daayay inanay ismaqleynaa لا إله hadda adiga waxaa taagan tahay baraad hadda waxaa taagan tahay maadaama gabadhan aan la qabin oo aan la guursan weli istir waxaa taagan tahay calafkeyga raasanaya oo maharaya taagan tahay miya hey intaas ka arag hadaa harto ilkaha alla ka tiraado jifta harin saan u daba socosaan qorlugud ku noqo qorlugud ha ka harin waa wataani kaane hay qoqaaga hadal inaader mid baan idin sheegayaa idinka iyo bulshadiina idin daawanaysaba waxaa la caano qabtay dabadeedba la qabay inantan see ka dhawaajisay kuna ka dhawaajiyey horey u sheekaysan jireen sidaa darteed jabrahan hadlaya qodiisa waxaa la tusaale dhawaad ka qabaysiisiiyaa hadal wayl waa gurmar marka waxa weeye sasaanta ama shucuurta ama wada hadalka ama waxa ka dhexeeya ama bareefada noqoto ama public noqoto public ana ugu talagalay aniga iyada u taliya taladeedana halka ku joogta kuna fadhiga kagana kaxaysa taladeedana maxaan ku dhahay qaadanaysaa horeysa iyo dambeysana waan u sheegay hore wixii soo dhexmara wixii soo waxaan oran lahaa inaad adigu soo kay gacaysana aan anagu gobonimada xornimada haddii aad anaga soo kay dambe waad u ducaan insha Allah maalin maalmaha kamida oo waliba dhow oo fogay ay dhici doonaan nikaaxayga anaga iyo ama meherkayga South Carolina iyo qalanjo dhawaan waliba sida ugu dhaqsa badan ugu dhow marka halka kale ka dhawaaqso aad tiri kalay waan yarad qoqaaga codkaada aniga waxa taqaan qoqa abo codkaada soo noqonaya ma taqaan u soo dhawo mobilka codku soo noqonaya ma tadin waxa weeye halka waxaad ka dhawaajisay oo aad tiri anaga adigu qoqaagu gabadha way ka weyn tahay gabadhana waxa dhiqi kara nin ka weyn baa dhiqi kara horta nin ka weyn ama nin ka ku dara waxa dhaqmo dabeecad baa la isku raacay dabeecad diinta waxa ku dhahay ninka kama wanaagsan dabeecadina kama wanaagsan gabadh ma tiido maynaas shukaasan la dhaqankaygana mayna wada dhaqmin oo meel ku mayna wada dhaqmin marka taa halka kale anaga iyo qalanjo ama kala yarana ma kala weyn la tiraay adiguna tiraa waad yartahay aad iyo aad baa looga labadooda mid codkooda soo noqonaya waay
وقوقاقة واي maya hal mar hadal qooqaayo hal mar hadal adigu aamus ku dhihin وانا كان هذا يدي انا هذا okay hadal samatar hadal ma ku maqlayaa si fiican ولبض عادي samatar ما كو سودا waa samatar maaha marka fadaxad media iyo media isbishii oo ku dabagalaya iyo weligeed ka hari maayo haddaan doono aqbalka runta ma kuu sheega waxba isdaalin waxba hadal badan uma baahni adag ma fahan war ilata waxa ku maanta guusta kaa hadhayaayo si raggeed adag gabadhaan ku siinayaan anigayga ku hadlaya jecel ayaa ku siinaya ma fahan hadda ragtimo inaad nin raga tahay baa kuu qiraya war anigaa gabadha ku siinaya kuli maalinta aad guustaha kala baxay intaa kasoo waxbayna ku seexan in la hadashid adeer rumaysa been oo qalan sheemka waxay ku jirtaa weriga weri waxaa ka baxadeer adaa kula hadlaya aniga ay qalanjo waxa weeyna dhaqtada waxa weeye xar soo dhaweeya nama dhex taado wuxuu gubid baa hadda wallahi soo dhama qoyskiisa wallahi bari baan aqbalka ugu duugaya ooridi baan noqonaysaa ardayga reerkoodan fadhiisanaya bari baan guursanaya waana qalan adiga bulshada ka qaado bari baan سمترو وقصلي سمترو نكمل اسكسر هذا dhigeyso ninkan wixii ka guursan oo ku sheegay hadal badan ما واحد انا دخلها ما بس inagu isku teetalbani ma garanayno shaqada ma naqaano qalanjan maanta socday waxa sanado hore wada sheekaysan jirnay hatta tota shalay wada sheekaysta qalanjan waa oorideedii adigana way ku sheegtay waxay ku tiri xiriirkeena wuu dhamaaday haddana qoqaagan wada sheekaysanaa ma ninkayga duulimaad ku tahay ha ninkaygan duulimaad ku ahay ama duulimaad ku ama diblomaasi ku ahaw qalanjan waa gabadhaydii haddaan doono berri baan meerinaya haddaan doono saddex bacd baan meerinaya adeer cagadhigo ka weynta gabadhu aniguna ka weyn adeer uraad cagadhigo maxaa iga kaa galay gabadhu kaa weyn maxaa kaa galay way kaa weyn maxaa kaa galay anaa ku jecel yadaa igu jecel ma xasbi jirta dhigeyso taas kuma qosol anaga iga weynatay media dhigeyso war ummadii islaamka hablihii islaamkii ee quruxda badnaayee yaa ku hadlay kaba joogo buuxiyey والله سمترو قوقاي حامر احنا منت حامر عاموسه qalanjo abaadaa su'aal ku weydiinaya labadan dhalinyar adaa kala saari karta adoona midna u eexanayn war haddaa shila wiilkaas haddaa qooqaaga neefta dhegeyso samatro dhegeyso qooqaaga haddaa jeceshana waa nin rag samatro haddaa jeceshana waa nin rag ninka ragga yaraan ma lahan weynaanna ma lahan hadba waa ka isfahantaan ma beenba waa may okay marka su-aashaan ku weydiinaya waxay tahay in adeer samatar ha kaga tegin shalaan sheekaysan jirno waa kala harnay waar dadka waa isku dhacaana way heshiiyaan qooqaagana ha kaga tegin haddaan wada soconnaa inaad beri kala tegi doontaan allahu aclam go-aanka ku bannaan waxay tahay oo adi aa qaadan karto ana ku siin karo waxay tahay war labadiinna keebaa dhaqaala badan I believe that taas aaminsana aniga midda kale idin kala saari karto dhaqaalaha nama kala saarayaan qalbigeeda iyo jacaylkeeda kalsoonideeda inagu kala saaraysaa wax dhaqaalaha dunida ba yaalaan yes qodobka iga sax jabra ha soo dhaafin adigu intaada jabro su-aasha aad weydiisa waxa weeye labadan inan miyaad kala saarin mase waad isku daynin waa bes laakiin lacag iyo dhaqaale waa intaasbo war labadan qalanjoy labadan ma kala saari kartaa caawo mise kugu adag tahay ma dhegeysanaysaa marka tahay horta samatar intuu wanaag jiray intuu xiriir jiray aniga adiga waa soo wada marnay laakiin calafkii baa saamaxi waayey inaan isu fiiwaarno maantadan la taagan yahay calafku wuxuu igu beegay ninkaa ku hor fadhiyaad aragtid soo xad garatay maaha aniga ahaantayda anigu meeshuu ku dhimanaya waan ku dhimanaya ma garatay saa adi shalay kuugu waalaa baa maanta isaga ugu waalna ma garatay asaga hadda ma ku waalatay haddaa samatarow aad leedahayna dee waad madax bannaan tahayoo anigu ilaaba ilaa ninkii raayaa reerka u haraya
adeer gacaliya taasna waa ogolahay waayo anigu kayga ninkayga aniga waa aaminsanahay hadalka hore kugu soo jaray aniga waa aaminsanahay qooqaaga anigu hore kugu soo jaray hadalka xaalkayga aniga waa aaminsanahay bal jacaylka waaye publica muxuu ahaa kaygii uu waayey soo maaha kaagi baaba-ayay dee caloosha kaadsaday jabray maxaa lagu yidhi dad baa lagu yidhi kala saar waxbaa aad meel soo qodsa soo dhigtay haye maxaa jawaabta dugsiye